aabbahani waxa uu dhalay 2 wiil oo mataana ah. labada wiil mar kasta waxa ay ahaayeen kuwo kala ra'yi duwan. kala duwanaashahoodu waxa uu ka soo bilowday markii ay dhalanayeen. mid sida caadiga ah ayuu u dhashay oo hooyadiis way foolatay, halka kan kalena lagu qalay oo caloosha laga soo saaray. xataa haddii ay wada socdaan isku wada ma raacaan oo mid jidkan markii uu aado kan kalena jidkan kale ayuu aadaa. sidoo kale mid kasta guri gooni ah ayuu degan yahay. aabbahood waa nin aad u xigmad badan oo wiilashiisa mar kasta waxa uu weydiiyaa su'aalo adag si garaadkooda uu u kobciyo. maalin maalmaha ka mid ah ayuu isugu yeeray labadiisii wiil, waxa uuna u sheegay inuu xanuun dareemayo, lagana yaabo in la oofsado oo uu iska dhinto. sidaas darteed waxa uu ku yidhi waxa aan doonayaa mid idinka mid ah oo aan ku wareejiyo mas'uuliyadda guriga. si taas u dhacdo waxaan idin weydiinayaa su'aalo 3 maalin ee soo socota. hal su'aal ayaan idin weydiin doonaa maalin walba. maalintii koowaad ayay u soo diyaar garoobeen su'aalihii. su'aashii koowaad oo la weydiiyana waxa ay ahayd qosol muxuu yahay. waxa uuna ugu daray in nin kasta ay gurigiisii aado berrina jawaabta loo keeno. sidiisii nin walba waddo gooni ah ayuu raacay oo gurigiisii ayuu aaday. subaxii dambe ayay soo laabteen. waxayna imaadeen aabbahood oo meeshii ku sugaya. mid kasta waxa uu ku yidhi aniga ayaa jawaabta wada. aabbihii ayaa ku yidhi